Somaliland cid gunno iyo xil ku joogtaa cid kale ma shaambadayn karto. xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu eedamo ay xukuumaddu u soo jeedisay ka difaacay gudoomiyaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro xoghaye Khadar Xuseen Cabdi Looge oo warbaahinta kula hadlay xarunta xisbiga uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Somaliland ay mas'uuliyiin aan xilal rasmi ah lahayn u magacawdo sida safiirada oo ay ku sheegto xil ah inay wada hayaan safiirka Somaliland iyo Soomaaliya taasina ay tahay mid qaldan. sida aan la socono wadankeena waxa yimaada wufuud fara badan oo kala duwan dadka inoo yimaada inta badan waxay leeyihiin xilal iyo titlo xilalka iyo titlada ay iyagu leeyihiin waa xilal iyo titlo dawladihii soo dirsaday iyo dawladaha ay matalayaan ay soo bixiyaan marar badan laakiin waxaan aragnaa oo inaga dhaqan noqotay siyaasadeennana dhaqan u noqotay in cid xil loo soo inagu aan xil cusub u magacaawno tusaale ahaan waxa laga yaabaa in safiirka Soomaaliya ee Ingiriiska amaba ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya inagu aan magac cusub la baxno oo ku darsano oo nidhaahno waa safiirkii Somaliland iyo Somaliland amaba aan nidhaahno waa ergeyga qaramada midoobay ee Somaliland iyo Soomaaliya waxaan doonayaa inaan shacbiga u xaqiijino oo u cadeyno taytaladaas inay yihiin taytalo beena oo aan jirin haddii ay jirto safiir marka uu wadan tagayo waxa laga aqbalaa waraaqihiisa aqoonsiga waraaqaha aqoonsiga waxa loo geeyaa madaxweynaha wadankaasi ayaana aqbala safiirnimada qofkaasi dad badan oo magac safiirnimo inoogu yimaada oo safiirada adduunka ah oo inoo yimaada ayaa marar badan marka ay inoo yimaadaan madaxweynaheena la kulma madaxdeena kale ee qarankana la kulma safiiradaasi waa safiirada Soomaaliya idinkana saxaafadda waxaan doonayaa hadda saxaafadii tihiin dadka ina wax bartaan la idinka doonayo runteena sheegtaan in la idinka doonayo inaydun dadka title-kooda ay noogu yeerno weegan waxa wadankeena timi oo soo booqatay gabadh ah Norwegian oo ah ergey khaas ah oo maxaan ku raahdaa ergey khaaska ah ee Norway ee Soomaaliya gabadhaasi waxa ay ka tirsan tahay qaybta nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta ee maxaan ku raahdaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Norway title-ka in la sheega ceeb maaha dambina maaha waa run iyo xaqiiqa ay tahay in la noolaano anagu gabadha maanaan casuumin maanaan u yeedhin wadanka ayay timi wadankana waxay ku timi iyada oo title-ka sidata su'aasha isweydiinta leh waxa weeye maadaama Soomaaliya ay dal kala tahay Soomaaliya aynaan wax shuqul isku lahayn gabadh sidata title-ka Soomaaliya inay ergey u tahay maxay naga inoogu timi waa su'aasha ay tahay qof kasta oo muwaadin inuu isweydiiyo maxaa ergeyga Norway bariga dhaxay naga inoogu yimin waaye ka Soomaaliya inoogu yimin xaqiiqadu waxa weeye amaba runtu ay tahay qof kasta oo Soomaaliya loo soo magacaabo dunidu halka ay ka taagan tahay inaguna waynu ku jirnaa safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa inagana ina matala oo inagana inoo yimaada taytaladaasi inaynaan been ka sheeginayno sidooda u sheegno waayo wali dan la aqoonsan yahay ma nihin xaqiiqadu taa weeye wali laynama aqoonsan dan la aqoonsayna ma nihin waxaynu nahay wadan doonaya in la aqoonsado sidaas ayaynu wali sharciyan adduunka marka la joogo ay noogu soo magacaabayaan ambaasadoradii Soomaaliya safiirka EU ee Soomaaliya imse goor ayuu Hargeysa yimaadaa ma aha safiirka Somaliland iyo Soomaaliya meel title-kaasi uu ku qoran yahayna maxaan ku raahdaa ma jirto doodu waxa weeye marka psychology-ga waxa jirta concept la yiraahdo connective dissonance waxa ay ka hadashaa qofku inuu subconscious-kiisa dambe ee maskaxda been u sheego si uu u qariyo guuldarrooyinkeena siyaasadda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Somaliland ee qorshe la'aanta ah ee indha la'aanta ah ee ay suurtagal tahay 6 bilood in wasaaradda arrimaha dibaddu ay bilaa wasiir ahayd qorshayaasha sidaas ah ee qarankan dhabar jabka ku ah kuma qarin karno
in aynu maxaan ku dhahdaa title beena aynu inagu u sameeyno dadka inoo imanaya oo aynu dhahno waxa weeyaan ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya iyo Somaliland maaha waa ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya run weeye waan ku celinayaa waa ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya runtu taa weeye waa inaynu aqbalo waa inaynu dhahno sidee baynu u helaa ergeyga gaarka ah ee Somaliland taasi shaqay nooga baahantay wadajir bay nooga baahantay midnimo ay nooga baahantay siyaasad ayay nooga baahantay is-eedayn iyo been inoogama baahna fadhiidnimadeena inaynu magacyada ku qarino qofka magacyada runta ka sheegana deeta aynu nidhaahno meel kale laga daaraa waxaan u aragnaa inay tahay siyaasad xumo iyo qorshe xumo oo maxaan ku raahdaa tii ay la dhalatay xukuumadda madaxweyne Muuse Bixi sidoo kale xoghaye Khadar Xuseen Cabdi Looge ayaa waxa uu fariin u diray wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi waxaan doonayaa inaan hal kelmad ku yiraahdo wasiirka warfaafinta hal kelmadna ku yiraahdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland kow haddaad tahay wasiir qarankan wasiir u ah aad fahamsantood garanaysa macnaha inaad qaran dhan iyo ummadan aad wasiir aad u noqoto macluumaadka aad dadka u sheegayso runnimadiisa iyo xaqiiqanimadiisa inaad hubisaa waa waajib ku saaran haddaad ku guul dareysato institutionka aad ka tirsan tahay intaasoo magaco xil leh intaasoo qof shaqaale ay joogto waxa aad sheegayso waa inay ku iman karto ku oran karto wasiir waxaasi run maahe kada waxyaabaha wasiirku yimid ee yiri aadka loogu qoslo waxa kamid ah wuxuu yiri Cabdiraxmaan Cirro weligii hadda waa weligii muu tagin xaflad 18 May marumba mise waa been anigu waa been oran maayo wasiirka been baad sheegaysaa oran maayo laakiin tiisa waan ka xishoonaynaa araga ay dhaahdo laakiin tiisa warkaasi xaqiiqo maaha mana jiro waana wax cid waliba ay hubin karto waxaan isweydiiyay wasiirku markuu warqada qorayay qof baa soo garaacay oo soo daabacay qof baa la akhriyay wasaaradda maaliyad baa gasho intaasoo qof baa ka tirsan qof saxa wasiirka ku yiraahdo wasiir warkani dhab maaha senteniskan ka reeb wasaaradda miyaa laga waayay mise waxa abuurmay dhaqanka aynu ognahay maanta dawladda Muuse ka dhex jira ee aanu qofna qof runta u sheegi karin ee aanu qofna qof ku oran karin waad qaldan tahay sida aanu wasiirku madaxweynaha ugu oran karin madaxweyne waxaas waa qalad ka daa ayaa abuurantay miyaa wasiirkana inta la shaqeysay ee ka hooseysa inaanay oran karin wasiir arintaas waa qalad oo ma jirto ee ka daa waanay nagu soo noqonaysaa oo ceebteedu inaga ayay nagu soo noqonaysaa arinta kale ee run ahaantii aan doonayo wasiirka inaan ku yiraahdo waxa weeye kelmadda khaa'inimo qaran waa kelmad aad u gun weyn maaha wuxuu qofku afka uu ka yiraahdo maanta waxaan la soconaa in maxaan ku yiraahdaa hadalka wasiirku yiri hadii maxkamad lagu geeyo aanu wuxuu ku soo cadeeyay dambigaas waana dambiyada waaweyn ay tahay inay maxkamada tiraahdo oo aanu qof aan maxkamadii ahayn aanu iskaba oranin waxaan doonayaa wasiirka inaan u sheego Cabdiraxmaan waxa uu matalaa wax ka badan 140% shacbiga reer Somaliland waa nin reer Somaliland muwaadina wadankan inuu madaxweynenimo ka doonaya insha Allah next year wadankan madaxweyne ka noqon doona waa nin 12 sano wakiilada soo hogaaminayay marka wasiir loo yahay amaba cid kale oo loo yahay inay gunno iyo xil Somaliland nimadoodu ay ku fadhido oo maalinta gunnada iyo xilkaasi ay goodo ay oranayaan markii horeba kuma aanan qanacsanayn inay Cabdiraxmaan yiraahdaan waa Soomaali weyn waxaan isleeyahay qarankana way caayaan iyaguna waxa weeyaan dalow ayay iska tuurayaan waxa aan doonayaa inaan kelmad kooban madaxweynaha yiraahdo madaxweyne doorashadii 2017 waxaad campaign-ka ku gashay cid baa Soomaali weyn ah maanta tiishir gudoonka waxa campaign-ka ku gasheen cid baa Soomaali weyn ah waxa aan isweydiinaynaa marka gudoomiye iyo xisbi haysta 40% wax ka badan doorashadii madaxtooyada
aad tiraahdaan waa Soomaali weyn marka wasiiradu si fudud u yiraahdaan ereyga noocaas oo kala ah xisbigii shalayto maanta xisbiga ugu weyn Soomaaliland waa xisbiga wadani waayo sababtoo ah baarlamaanka xisbiga ugu badan ee fadhiya waa xisbiga wadani xisbigii sida ahaa oo dunida ay wada ogtahay marka wasiiradu si fudud ay u yiraahdaan waa Soomaali weyn macna noocee bay Soomaaliland ka bixinaysaa jiritaanka Soomaaliland halkee bay dhigaysaa hadallada oranaysa implicationska international ay yeelanayaan ma isweydiisaan ayay run ahaantu su'aashu ay tahay madaxweyne maanta mar kale waxaynu u soconaa doorasho 2022 hadii Ilaahay raahdo insha Allah waxaynu doorashada u soconaa maanta adigoo waay araga adigoo duqa oo maxaan ku raahdaa odaygii jamhuuriyadda Soomaaliland ah waxaynu doorashada u soconaa adigoo madaxweyne ah ma waxa aad doonaysaa inaad doorashada ku gasho dhiriqdii iyo kala qaybintii iyo dagaalkii aad 2017 ku gashay waayo hadalka wasiirku yiri uma aragno hadal la iskii waxaan u aragnaa bilowgii qorshaha campaign-ka 2022 iyo dhaqankii dawladnimada madaxweyne Muuse lagu bartay kala qaybinta shacabku maxay Soomaaliland u soo jiidaysaa madaxweynaha halkee bay dhigaysaa marka campaign lagu galo shacbigii qayb dhan oo kamid ah shaambad beena lagu dhufto si hal cod ama laba cod loo helo saameyn intee leeg bay ku yeelanaysaa jiritaanka Soomaaliland iyo sii socoshada Soomaaliland tahay in la isweydiiyaa taa weeye madaxweynaha waxaan u soo jeedinaynaa inaanu dhiriqdaasi reer Soomaaliland geenin uu og yahay oo uu garanayaa ereygaas iyo saameynta taariikhda madow ee uu Soomaaliland ku leeyahay uu garanayaa oo uu og yahay inta qof ereygaas ku dhimatay ee reer Soomaaliland uu garanayaa oo uu og yahay 2017 sida ereygaasi uu mujtamaceena u kala qaybiyay maanta mar kale ayaynu doorasho galaynaa waxaanu madaxweynaha u soo jeedinaynaa iyo xisbiga kulmiyaba aan gallo doorasho nadiif ah aanu diyaar garowno doorasho ku dhisan siyaasad aragti horu socod iyo in dhalinyaradeenna iyo mujtamaceena aan u abuurno rajo ma aha markaad rajo abuuri kari weydo inaad been soo maxaan ku dhahday malmaluuqdo maanta waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa Axmed Saki Ibrahim wararka CBA magaalada Hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom